formka ayaan idin tusinaya. Let's go to the formka sida aad aragtaan waa kan formka hoos baan soo dhigi doonaa. Marka formka ayaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal, formkan ayaan buuxin doonaa. Formka markaad ku dhufataan saaxiibayaal hoos idin soo baxay si aad bal teamka internalka email ugu dirtaan. Formka aan hoos idin soo dhigay raaca, because waa boqolkiiba 90 dhibaatada dhalinyarada wax haysata oo aanay fahmaynin waa partner monetization issue lagu haysto. Isagoo shuruudihii buuxiyay 10,000 gaaray, 20,000, 50,000 gaaray, isagoo saacadihii buuxiyay oo malaayiin ay muuqaaladiis daawanay ayaa weli waxa lagu haystaa partner. My brother waxa lagu haystaa sababtoo ah muuqaalada captionka turn off ma ka dhigin, isla markaana wuxuu akhrinayaa language-kii Soomaaliga ayuu akhrinayaa. waa luqadda ugu fiican ugu lacagta badan ee haddii xayeysiin Facebook aad ku saaran tahay ay qasab tahay in aad doorato markasta. haddii lagu haysta unoriginal content waxaad ogaataa in page-kaaga ay ku jiraan muuqaalo aadan adigu lahayn. optionka labaad ee aad haysato saaxiibayaal waxa waaye oo ineligible country aad kaga guuleysan karta inaad isticmaasho saaxiibayaal VPN stronger. war kale waan ku celinayaa muuqaal horena waan ka sameeyay. waxaad u baahan tahay in strong VPN aad adeegsata si aad ugu gudubta xayiraadaasi ku saaran. waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhawaada. aniga Cabdijaliil Cusmaan, Cabdijaliil Show iyo Cabdijaliil Films ayaa igala socotaan oo ah labada kanaal ee aan internetka ku leeyahay gaar ahaan shabakada YouTube. muuqaalkan waxaanu kula hadli doonaa shirkadda Facebook. waxaan u bandhigi doonaa 4 caqabadood oo inaga haysata Facebook. waxaan xal u raadin doonaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay suurtagal ka tahay in waqti xaadirkan ay ka hortaagan tahay in page-kaaga aad lacag ka samaysa ama aad ku xidhata monetization-ka. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan, waa kanaal cusub oo YouTube-kan ugu talagalay inaan ku soo gudbiyo arrimaha la xiriira internetka iyo qaabkii aad nolol maalmeedkiina ugu soo saaran lahaydeen, isla markaana idinka caawiyo aniga oo raadinayay jawaabaha la xiriira dhammaan cabashooyinka ama dhibaatooyinka idinkaga haysta dhinaca internetka. Facebook ayaanu la hadli doonaa, balse ka hor waxaanu idin soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay suurtagal ka tahay in aad waqti xaadirkan wajahayso oo la xiriira dhinaca Facebook amaba dhinaca page-ka haddii ay noqon lahaayeen iyo haddii ay profile noqon lahayd intuba. haddii aan ku horumaro saaxiibayaal, waxaa laga yaabaa in ay ku haysata 3 arrimood oo waaweyn. midkood inay ku haysata kow waa in ay ku haysata waxa loo yaqaan ineligible country oo uu ku leeyahay page-kaaga adigoo shuruudihii buuxiyay in weli ineligible country uu ku soo saaray. haddii ineligible country uu ku soo saaray Facebook page-kaaga waxaad ogaataa in aad ku nooshahay dal aan loogu talagalin in Facebook xayeysiin looga xiro. mar kale ayaan ku celinayaa kow haddii ineligible country uu ku soo saaray Facebook waxaad ogaataa inaad ku nooshahay ama page-kaaga laga maamulo amaba uu ku jiro qof ku nool dal aan loogu talagalin in lagu xayeysiiyo Facebook ama Facebook AdSense looga xirto. dhibaatada labaad ee waqti xaadirkan suurtagal ka tahay inay ku haysato waxa ay tahay waxa loo yaqaan unoriginal content oo ah in lagu haysto muuqaalo unoriginal ah oo aad soo gelisay Facebook-kaaga. haddii unoriginal content ay ku haysato waqti xaadirkan waxay u badan tahay in Facebook-kaaga ama profile-kaaga ama page-kaaga ay ku jiraan muuqaalo aadan adigu lahayn. mar kale ayaan ku celinayaa, haddii lagu haysta unoriginal content waxaad ogaataa in page-kaaga ay ku jiraan muuqaalo aadan adigu lahayn. halka waan u laaban doonaa sidoo kale. arrinta saddexaad saaxiibayaal ee ay suurtagal ka tahay in waqti xaadirkan ay ku haysato waxa ay tahay waxa loo yaqaan partner monetization issue. adigoo dhammaan shuruudihii buuxiyay suurtagal ay tahay in aad ku nooshahay wadan eligible Facebook u ah. maxaa keenay in ay ku soo baxda ciladan ama dhibaatadan? waana dhibaatada saddexaad saaxiibayaal oo aan rabnaa in aan xal u raadin. waana wax loo yaqaan partner monetization issue. dhammaan dhalinyarada ila soo hadasha ee fariimaha ii soo dirtay YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo WhatsApp-ka igala soo hadla, 3dan dhibaato kaliya ayay ka caawdaan. haddii ay jirto dhibaato kale oo aad ka cabashadeedu tahay, fadlan hoos noogu soo qor, waanu ka soo jawaabi doonaa, xal ayaan u raadin doonaa. marka aan 3dan ciladood saaxiibayaal idiin haysata aan dul istaaga, xal maxaa u ah? waxa ugu horeysa waxa way saaxiibayaal sidaan sheegay in aad marka hore waxa loo yaqaan identify the issue ah in dhibaatada aad ogaato. haddii aad dhibaatada ogaatay oo aad 3dan xal mid ku haysata, tan koowaad ayaan ku horumarinaa ineligible country.
maxaa xal u ah ineligible country saaxiibayaal waxaa xal u ah in page-kaaga aad ku wareejiso qof ku nool meel ka baxsan waddanka aad adigu ku nooshahay haddii aad Soomaaliya ku nooshahay haddii aad Ethiopia ku nooshahay haddii aad ku nooshahay Kenya oo la rajaynayo in bisha lixaad xayisiinta loo fasaxaad ku nooshahay waxaad u baahan tahay in page-kaaga aad ku wareejiso qof ku nool Europe iyo America qof ku nool qaarad kale Asia qof aanan ku nooleen Africa oo ah dalalka qaaraha gaar ahaan Soomaaliya iyo dalalkaasi si ay kugu xidhaan xayisiinta oo ay u maamulaan page-kaaga haddii ay ku haysato wax loo yaqaan eligible country xalka ugu wanaagsan waa ka oo ah in page-kaad ku wareejiso qof kale isaga waxaysiinta ku dalbo isla markaana muuqaalada aad ugu dirta Telegramka iyo shabakada loo yaqaan WeTransferga isla markaana qofkaasi uu muuqaalada ku soo geliyo dalka isaga oo ka maqan adna aad dalka joogto waa optionka koobaad ee aad haysata optionka labaad ee aad haysata saaxiibayaal waxa waaye oo ineligible country aad kaga guuleysan karta inaad isticmaasho saaxiibayaal VPN strong ah war kale waan ku celinayaa muuqaal horena waan ka sameeyay waxaad u baahan tahay in strong VPN aad adeegsata si aad ugu gudubta xayiraadaasi ku saaran VPN ka saaxiibayaal qaar free ayaa jira laakiin VPN waxaa jira aan free ahayn kuwaasi oo ka caawinaya in ay qariyaan waxa loo yaqaan IP addresska computerkaaga ama IP addresska internetka laptopkaaga ama telefoonkaaga ku xiriirsan VPN-ka wuxuu ka caawinayaa in aad qarisa waddanka aad ku nooshahay isla markaana aad dal kale gelisa si aad mar kasta oo aad muuqaal usoo gelinaysa Facebook-gaaga ku ogaanin meesha aad ka soo gelinaysa muuqaalkan halkan way caddahay VPN-ka saaxiibayaal laba ayaa halkan binaa in ciwaankaaga aad iska tala saarato oo aad ka soo gelisa VPN-ka in aad on dhahda iyo in haddii aad weydo qof ehela ah oo shaqadaas ku qabta koobaad aad u dirta aad ka codsato inuu ku soo furo Facebook profile uu ku soo furo halka mar kale ayaan ku celinayaa in aad qof ehelkaaga inta aad la hadasho aad ka codsato in Mareykanka Ingiriiska Jarmalka Canada uu kaaga soo furo Facebook profile uu kaaga soo furo isla markaana uu ku soo diro Facebook profile kaas ayaad admin kaga dhigaysaa page-ka aad rabto inaad lacagta ka sameysa marka ayaad VPN-ka markasta oo aad soo galaysa ciwaanka cusub ee Mareykanka lagaaga soo furay ayaad ka soo galaysaa waxa laga yaabaa in ciwaankaaga hore Facebook-ga regionka ay u dooran tahay in uu Soomaaliya yahay ama dal kale uu yahay marka waxaad kaga gudbi kartaa ciladan in qof ehelkaaga ah uu account ku hadii uu ku guul dareystay in uu ku update gareey ayno dadka wadamada ku nool inay aad u mashquul badan yihiin hadii uu ku dhaco qofka aan shaqadaas kuma qaban kara waxa uu ku qaban karaa in uu ku soo furo Facebook profile account isla markaana admin uu kaaga dhiga aad ugu dhigta Facebook profile account ehelkaaga ay ku soo fureen page-kaaga aad adigu leedahay VPN aad sameysata markasta oo aad page-kaaga muuqaal soo gelinaysana aadan ka soo galin Facebook-gii page-kaas aad ka furtay ee weynaa ee aad ka soo furta aad ka soo kicisa Facebook-gii ehelkaaga ay ku soo fureen isla markaana halkaasi aad toos muuqaalada ka soo gelisa adigoo xaqiijinaya markasta oo aad Facebook-gaaga soo kicinaysa in VPN-kaaga uu on yahay isla markaana aad dooratay waddan aan ahayn Africa ee aad ku nooshahay halkan adigoo intaas sameeyay laga yaabo mararka qaarkood in aad qaldanto oo aad ilowda in aad turn on dhahda VPN markaas waxaan ka codsanayaa in aad VPN-ka ka soo kicisa in aad xaqiijiso in VPN-kaaga uu on yahay halka VPN-ka ayaan sii taagnaan doonaa cilad kale ayaa jirta oo ah khalad weyn oo ay dhalinyarada galaan VPN-ka isticmaala kaas oo ah in maalinba ay ka soo galaan waddan cusub haddii aad dhahday profile-kan waxa aan ka soo kicinaa VPN-ka France maalinta dambe aad Mareykanka ka soo kiciso maalinta dambe aad Canada ka soo kiciso maalinta dambe aad UK ka soo kiciso Facebook-ga waxa uu fahmi karaa in aad VPN isticmaalayso marka waxaan kugu talinayaa haddii profile lagu soo sameeyo ehelkaaga ku soo sameeyeen VPN lagu furay ama aad adigu furatay aad lacag subscription iska bixisa in aad xaqiijiso in hal waddan VPN-ka aad ka dhigto address-kiisa isla markaana halkaasi waddan aad markasta ka soo geliso halka ugu wanaagsan ee aad sameyn karto saaxiibayaal waa kaas dhanka waxa loo yaqaan waxa loo yaqaan saaxiibayaal ineligible country waxaan rajaynayaa in halkaasi aad si fiican aad u fahanteen arinta labaad saaxiibayaal waxa ay tahay waxa loo yaqaan unoriginal content halkan waa simple and clear cilada labaad ee dhalinyaro badan haysata 80% dhalinyarada haysata waa wax loo yaqaan unoriginal content oo ah in muuqaalada aad soo gelisaan YouTube-ka
aan idhaahda Facebooka aadan idinku lahayn. mar kale ayaan ku celinayaa muuqaalada aad soo gelisaan Facebooka aadan idinku lahayn. haddii aad og tahay boqolkiiba 99.9 in muuqaalada ku jira Facebookkaaga, page-kaaga iyo profile-kaaga aadan adigu lahayn, saaxiib annaha ay lugoyn annaha ay wareerinin telefoonka iyo fariimaha ay wareerinin, adnaha waqti iska luminin. waxaan kaa codsanayaa inaad xaqiijiso marka hore in boqolkiiba 99.9 aad leedahay muuqaaladaasi oo aad ku soo duubatay kameradaada oo aad adigu leedahay. 9.1 kalena saaxiibayaal ay yihiin muuqaalo aad transformative ku samaysay oo aad bedeshay ama aad ka soo muuqatay ama aad ay sida waxa loo yaqaan aad ka bixisay reaction aad ka bixisay, laakiin boqolkiiba halkaasna ay yihiin muuqaalo adigu si aad u bedeshay. haddii ay noqon lahayd inaad graphic u dasha aad ku darto, haddii ay noqon lahayd inaad subtitle ku darto, haddii ay noqon lahayd inaad adigu ka soo muuqato, haddii aad noqon lahayd boqolkiiba halkaasi in laftirkiisa aad wax badan kasii bedesho. Facebook unoriginal content waa waxa kaliya oo uu akhriyay si fiican oo ugu warqaba algorithmkiisa. maalinta muuqaalka ku jira page-kaaga ama Facebook-kaaga aadan adigu lahayn aad og tahay waa maalinta hoogaaga uu galay. unoriginal content waa waxa kaliya ee boqolkiiba boqol Facebook oo shaqo ka qabsaday. marka waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaanteen page-keena in muuqaalo isku mid laga helo. dadka muuqaalada isticmaala ee originalka ah boqolkiiba waa 2 iyo 3 marka Soomaalida. marka haddii aad og tahay in muuqaalkan hablaayo meel ka hadashay, habloo reaction ka bixiyay, hablaayo meel isku haysta ama Facebook ka soo qaadatay kala ama TikTok ka soo qaadatay oo loogada TikTok ay ku dhagan tahay, ha isku daalinin, waqtina ha isaga luminin, lacag kama sameyn kartid. waa in muuqaalada boqolkiiba boqol saaxiibayaal aad adigu leedihiin amaba boqolkiiba halka soo harina aad adigu ka soo dhex muuqatay amaba aad wax ku samaysay loo yaqaan transformative oo aad adigu si u bedeshay. caqabadaasi waa dhibaatada labaad ee idin haysata saaxiibayaal, waana wax loo yaqaan unoriginal content. maxaa xal u ah? waxaa daawo u ah shortcut. anigoo hadalka idinku daalinayni wax kasta oo ku jira page-kaaga oo muuqaalkaas oo aad adigu lahayn in aad masaxdo oo aad tirtirto. haddii ay noqon lahayn reelska, haddii ay noqon lahayn Facebook caadiga, wax kasta oo ku jira adiga aadan lahayn hawada ku cun saaxiib. hadda baan kuu sheegay wax kasta oo aad adigu lahayn page-kaaga ku jira hawada ku baaro. I hope inaad fahanteen. caqabada saddexaad ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo diray screenshotyada faraha kala duwan isla markaana wax iga soo weydiiyay wax loo yaqaan partner monetization issue. haddaba maxay tahay partner monetization issue? maxayse uu yahay halka aan ugu gudbi karo? partner monetization issue saaxiibayaal waa si in aad u violate gareysay qaar ka mid ah standardka Facebook ama guidelinska Facebook u yaala. waxa waa inaad isticmaashay muuqaalo anshaxun sida muuqaalo qaaqaawan, sida muuqaalo dhaawacan, sida qof isha ka soo dhacaysa, sida qof waa inaad xaqiijisaa sida caruur la dilay. boqolkiiba boqol partner monetization issue waa dhibaatada aad ku samaysay adigoo standardka Facebooka oo ah in muuqaalada meesha ku jira wax u horeeya ay yihiin muuqaalo violation ku sameynaya, qof dhaawacan, qof dhiig ka socda, qof dhibaato kala haysa. waa inaad xaqiijisaa in muuqaalada Facebooka ku jira ay yihiin muuqaalo nadiif ah oo aan ahayn wax qaaqaawan, aan ahayn caruur, aan ahayn dad balwad isticmaalay, aan ahayn wax ka sheekeynaya daawooyin medicine ka sheekeynaya, aanu ahayn wax politics too much ugu sheekeynaya. waxaa kaloo la xiriira saaxiibayaal partner monetization issue in ay language ka akhriyaan. Facebook wuxuu akhriyaa wax loo yaqaan saaxiibayaal language buu akhriyaa oo ah luqadda lagu soo gudbiyo muuqaalada. haddii page-ka aad furtay isla markaana dhibaatooyinkaas aanay ku haysanin, eligible country aanu ku haysanin oo wadan fiican aad joogto, 2 muuqaalada original ay yihiin oo aad ku kalsoon tahay boqolkiiba boqol, laakiin 3 caqabadan lagu tusay oo ah partner monetization issue waxaa ku haysta wax loo yaqaan language saaxiibayaal oo ah in luqadda Facebooka ee aad ku soo gudbisay amaba captionka ku saaran ay tahay luqad aanu Facebook aqoonsanin. Facebook very few languages ayuu aqoonsan yahay oo uu aqoonsan inay yihiin luqado caalami ah oo lagu soo gudbin karo muuqaalada. laakiin markastoo aad muuqaal soo gelinaysay captionka ayaa on ku ah saaxiibka cali. captionka haddii on ku yahayna Facebook waxa uu akhrinayaa luqadda lagu soo gudbiyay muuqaalkaas. automatically wuxuu soo qabanaya adduunka tiknoolajiyada algorithm Facebook wuxuu soo qabanaya in luqadani ay tahay Soomaaliya. Soomaaliya hadii tahay A baa ku cunay oo ah in
aan marna lacag ka sameynaynin isla markaa because ma aqoonsanaba dee Soomaali maba aqoonsanaba maxaa xal ah maba aqoonsan marka partner monetization issue number 1 waa waxyaabaha loo yaqaan standard violation ku sameeyay number 2 waxa way saaxiibayaal qof kale gadaashii ha weydiinin aniga ayaa Facebook ku soo weydiiyay la xiriiray chatka Facebookna waan ku tusi doonaa waa marka wax loo yaqaan language ka saaxiibayaal make sure saaxiib haddii aad xayeysiin hesha maalinta aad heshay haddii aadan helinba dad baa laga yaabaa in ay dhahaan language-ka waxaan bedelayaa kaliya marka aan monetization hela waxaad u baahan tahay language-ka muuqaalada in aad iska bedesho maalinta ugu horeysay aad bilowday inaad muuqaalo soo geyso Facebook-gaaga because haddii muuqaalo hore ay kugu jiraan oo boqolkiiba 100 ama boqolkiiba 99 muuqaalada aad adigu leedahay oo original yihiin isla markaana language caption-ka uu on yahay waa inaad aqliga shaqeeyo saaxiibayaal caption-ka waa in aad off ka dhigtaan mar kale baan ku celinaya halkan caption-ka waa in aad off ka dhigtaan sababtoo ah Soomaaliya ayuu subtitle ku sameynaya marka algorithm-ka uu akhriyo Facebook Soomaaliyana ma ahan luqad la aqoonsan yahay dhinaca Facebook I hope saaxiibayaal si daacad idinku warramay halkan waan ku celinaya caption-ka off iska dheh anytime oo aad page-kaaga muuqaal soo gelinaysa I will try inaan idin tusiyo saaxiibayaal sida caption-ka off loo dhaha anytime oo aad Facebook muuqaal soo gelinaysa make sure you turn off caption so that Facebook inuusan akhrinin the subtitle of your Facebook video haddii uu akhriyo oo Soomaali soo qabta waxaa laga yaabaa in partner issue lagu qabsado marka luqadaha aad dooranaysaana saaxiibayaal ee ugu lacagta badanna I will make sure inaan videoga idinku tuso ama video kale ayaan ka soo sameyn doonaa waxay ahayn saaxiibayaal saddex dhibaato oo dhalinyaro badan haysata haddii dhibaato afraad ku haysata ii soo sheeg hoosna iigu soo reeb muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa research ayaan ku sameyn doonaa waa eligible country oo ah in wadan aan eligible ku nooshahay halkadan saaxiib aan ku sheegay dib ugu laabo muuqaalka 2 inay ku haystaan original content oo ah inaad original halka waan ku sheegay partner monetization issue ay ku haysata iyana sidoo kale saaxiibayaal halka waan idin sheegay intaan u guda galin aniga iyo Facebook fariintana dhexmartay ama wada hadalladana dhexmaray iyo waxyaabaha aan ku wada hadalnay Facebook markii aan fariin email u diray toddobaadkan ama aan la hadlay waxaan rabaa inaad saaxiibayaal idin tusiyo wax loo yaqaan waxa kale oo jira saaxiibayaal inaad idin sheega in aad markas xaqiijisaan in page-kiina quality-giisa uu yahay quality 100% fiican page-kaaga quality-giisa waa inaad xaqiijisaa waxa kale oo aad sameyn kartaa saaxiibayaal waxa loo yaqaan content support inaad appeal oo dirta muuqaalkan waxaan kugu tusin doonaa sidii aad Facebook ula xiriir lahayd oo aad appeal ugu dirsan lahayd ha igu degdegin fadlan nala sii joog waxa kale oo aad sameyn kartaa saaxiibayaal waxa loo yaqaan oo aan idin kula talinaya 100% inta aan Facebook fariintana dhex martay iyo sida aad ula xiriir lahayd aan idin sheega waxaan idin ka codsanayaa patient and persistence oo ah in aad saaxiibayaal dulqaad muujisaan qof baa laga yaabaa in Facebook uu maanta furtay ilaah buu u fududay u kala kacday 10 qof ay ku soo xirmeen maalinta dambe wuxuu rabaa inuu lacag ka sameeyo page konton ku xiranta ama 100 ku xiranta ama 20 ku xirantahay oo maalintii aad furtay ilaa hadda caption-kaagu Soomaali akhrinaya oo partner monetization ku arkayaan caption-ka buu arkayaa Soomaali waa wixii turn off ma dhihin markaa soo gelinaysay maanta haddii aad furinayso Facebook page marka laga soo tago muuqaalada aad soo gelinayso waa wax labaad waa inaad ku xisaabtantaa you turn off this fucking caption waa inaad iska xirtaan ma fahan saaxiib because waa 90% dhibaatada dhalinyarada wax haysata oo aanay fahmeenin waa partner monetization issue lagu haysto isagoo shuruudihii buuxiyay 10,000 gaaray 20,000 50,000 gaaray isagoo saacadihii buuxiyay oo malaayiin ay muuqaaladiis daawanay ayaa wali waxa lagu haystaa partner my brother waxa lagu haystaa sababtoo ah muuqaalada caption-ka turn off ma ka dhigin isla markaana wuxuu akhrinayaa language-kii Soomaaliga ayuu akhrinayaa marka si aad ugu gudubta dhibaatadaas ugu gudubta waxaad u baahan tahay first day at Facebook page furinaysa you turn off this shit language iska xir Soomaaliga kadibna luqadaha aan ku tusi doono ama hoos kugu sheegi doono adeegso oo ugu lacagta badan uguna fiican Facebook iyo dunida laga aqoonsan yahay I hope saaxiibayaal si daacad baan idin la hadlay waxaan idin tusinayaa caption-ka oo muhiim ah iyo sidoo kale waxyaabaha aan Facebook-na dhexmaray Facebook ayaan fariin u diray toddobaadkan wayna ila soo hadleen
waxyaabahana dhexmaray oo xaqiiqada ahna baan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo aan iyagana dhexmaray isla markaana waxaan idin tusin doonaa saaxiibayaal link ay ii soo direen aan idinka faa'iideyn doonaa kaasi oo aad kula xiriiri doontaan idinkuna Facebook haddii aad intaan soo gaartay saaxiibayaal oo aad weli nala joogtay intaan u guda galin waxaan kaa codsanayaa saaxiibayaal aad nagu soo biirta Facebookan YouTube-kan cusub Cabdijaliil Films waa YouTube brand new oo aan hadda sameeyay aad aragtaan 3 muuqaal ayaa ku jirto wax kale oo aan ugu talagalay malaha aan ka ahayn in aan idin soo gudbiyo si joogto ah tutorial ku saabsan internetka caqabadaha idinka haysta sidii aad nolol maalmeedkiina internetka ugu soo saaran lahaydeen marka ana taageer ama naftaada taageer markasta oo aan muuqaal soo galiyay ku saabsan social media waxaan isku dayaa saaxiibayaal si uu idinku soo dhaco fadlan subscribe isar ana igu taageer ana naftaada u heli oo ah anytime oo issue ku haysta saaxiibayaal halkan ayaad halkeeda ugu imaan doontaa insha Allah waxaan rajaynayaa damo aad subscribe saartaan halkan oo aad emoojisaan in halkan aan sii joogo karo waa damo saaxiibayaal aad heli doontaan muuqaalo tayo leh isla markaan aan waqti badan geliyay marka si aan monetization ana u helo brand new channelkan uu cusub yahay waad aragtaan 200 ruux kaliya ku xiran si aan 500 ruux u gaaro isla markaan aan u dalbado monetizationka sorry hadalka waa idinku badi make sure saaxiibayaal inaad subscribe ii saartaan okay maxaa ina dhexmaray aniga iyo Facebook waxa ina dhexmartay sheeka habeen hore taasi oo ahaa in aan ka codsaday inay review igu sameeyaan Facebook page-kayga waxaan idin tusinayaa markii chat-kii aan Facebook idin dhexmaray iyo waxa xalka ah ee ay ii sheegeen waxay ka faa'iiday waa link aan hoos idin soo dhigi doono oo aad kula xiriiri doontaan qaabkan aniga aad idin tusin doono laakiin waxa aan fahmay baan sidoo kale idin fahansiinaya saaxiibayaal si aadan waqti badan ugu bixinin isla markaana aadan ugu jahawareerin Facebook saaxiibayaal markaan la hadlay saaxiibayaal waxa ugu horeysa waxay ii sheegeen waxa ay tahay in ay haystaan strong rules inuu yaala kaas oo ay ugu talagaleen inay kula dagaalamaan ciwaanada iyo page-yada aan raacin policy-ga Facebook u yaala sidaad aragtaan saaxiibayaal waa meta sida halkan aad ka aragtaanba that is meta way oo aan maanta aan la hadlay habeen hore dartiina baan ula hadlay caqabadihiin si aan wax ugu weydiiyo marka monetization issue ba ay haystaan ku dhahay ma fahantay like waxaan dhahay dhibaatadaas ba ay haysto waxay igu dhaheen saaxiibayaal sida halkan ka aragtaan Cabdijaliil waxay igu dhaheen we place restriction when your account is violating the policies ma fahantay we have taken this decision is because your account is not following our partner monetization issue oo ah in page-kaaga aanu raacaynin monetization issue ay inoo talas waxaa laga yaabaa in ay igu haystaan waxyaabo la xiriira monetization issue sida language-kan idin shubo ma fahant waxaan u sheegay in aan u xaqiijinayo in always aan raacay guidelines u yaala Facebook isla markaana aan u xaqiijin karay in aanan jibinin waxay ii sheegeen in aan review dalbaday if you have already requested a review and the decision is not changing that means the team have taken the final decision waxaan u sheegay inaan review u diray isla markaana aan jawaab ka codsanaya in ay soo siiyaan Facebook waxay ii sheegeen in review haddii aad dirto halkan ayana sidoo kale caqabad ay dhalinyarada ka haysta haddii aad review u dirtay saaxiibayaal Facebook monetization issue review u dirtay ee aanay weli calaamadii review again u dalban lahayd ku siinin you need to wait waa inaad sugtaa saaxiibayaal haddii laga yaabo isbuuc bay qaadan kartaa haddii laga yaabo bil bay qaadan kartaa haddii laga yaabo 3 bilood qaadan kartaa waxaa xitaa laga yaabo saaxiibayaal 6 bilood inaad qaadato marka haddii aad review u dirtay ma ahan inaad isu wareerisa keep posting ma fahantay waxaad soo gelinaysa page-kaaga soo geli shaqada halkeeda ka wad si laba jabaar laakiin waa inaad sugtaa waxa ay leeyihiin waxaan ku dhahay maxaad igula talinaysaan maxaan sameeyaa waxa igu leeyihiin I can only request you to please try to post on a regular basis oo ah in aad postiyada wada shaqada aad wada hori u wad ay leeyihiin Cabdijaliil shaqada aad wada hori u wad oo ah waxa aad soo post gareynaysay soo post garey ay igu leeyihiin markaas baa waxaan ka codsaday in aan waxaan u baahana baan ku dhahay I'm disappointed baan ku dhahay I have been posting regularly here as a journalist but it seems that the team are not supporting waxaan ku dhahay I'm disappointed baan ku dhahay waxaan u muuqataa in teamka aanu supportive enough ahayn oo dadka aan taageerin maalin kasta wax baan soo geliya waxay ugu dhaheen we here at Meta we only support inquiries which is related to ads manager ma fahantay our monetization team is different and they are not live team ma fahantay they work on report on with the help of our team of an oo ah saaxiibayaal
in kuwa hadda aan la jaatin garaynaya kuwa ii gudbeen ay sheegayaan in dadka waxyaabo ugu badan xiriirka Facebook la hela ay tahay kaliya ads managerka in lagala xiriiro laakiin dadka internalka ah oo monetizationka la xiriira saaxiibayaal boqolkiiba boqol ay isticmaalaan report ay ka heleen AI-da marka waxay ku tusinaysaa halkan saaxiibayaal waxa aanu la sheekaysanayna amaba aan raadinayna waa wax ay ka soo sokeeyaan boqolkiiba 80-90 AI baa ka soo sokeeya in Facebook aad hesho aad la xiriirto oo degdeg codsiyadaada iyo reviewgaaga looga jawaabo waa wax aad u fog waay sababtoo ah sida aad aragtaanba teamka AI ayaa ka soo horeeya ma fahmaysaa waxay leeyihiin our monetization team is different and they are not live team like dad live oo ula jaad gareyn karta ma ay wili waxaan ku dhaawaa niyo jabsanahay iyo wareej kooxdaas baan ku dhaawaa waxay ku dhaheen suurtagal ma aha sababtoo ah dadka aad la ka sheekeynaysa live team ma ahan AI ay caawinayaan for monetization waxay leeyihiin for monetization we can only help you with the information akhbaaraadka bis baan ku siin karnaa ay leeyihiin sababtoo ah kuma caawin karna ma fahantay waxaan ka codsaday sidoo kale is there any way baan ku dhahay you can transfer me to the relevant team so that I can reach them baan ku dhahay I understand they rely on AI which is absolutely sad baan ku dhahay maxaad iga caawin kartaa waxaan rabaa inaan teamkaasi la xiriiro waan arkaa inay AI ku tiirsan yihiin maxaad iga caawin kartaa baan ku dhahay mar kale waxay igu dhahday Bella baa la dhahaa I think gabadhan maybe Asian way umaleyn Abjir waxay u dhahday as I have mentioned above there baan ku dhahay waxay u dhahday Abjir mar kale as I have mentioned above there is no live team they work with the AI oo ah sidaan hore kuugu sheegay Cabdijaliilow ma jira live team oo arrimaha monetizationka ka caawin kara waxa kaliya ee jira waxa way team AI ah oo algorithm kala shaqeeya you need to waxay ugu dambeyntii waxay u dhahday you need to try a review oo ina review mar kale u dirto hadii ay caqabad ku saaran tahay all those things waxaan u sameynaa saaxiibayaal inaan xal u helo qaar ka mid ah dhibaatooyinka idin haysto waxaan ku dhahay waxaan sameeyaa I can't reach AI lama sheekaysan karaan ku dhahay ma fahantay because AI waa wastage of time garat waa computer la programming robot melian anigu wadi waqtiga uma dhumo waa Wednesday baad markaan la hadlayo marka waxay dhac Abjiril I'm helping you with the with the form by form baan ku siinay oo aan kugu caawinaya form kan raac bay igu dhahday marka saaxiibayaal formkii bay ii soo dirtay formka ayaan idin tusinaya let's go to the formka sida aad aragtaan waa kan formka hoos baan soo dhigi doonaa marka formka ayaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal formkan ayaan buuxin doonaa formka markaad ku dhufataan saaxiibayaal hoos idin soo baxay si aad bal teamka internalka email ugu dirtaan formka aan hoos idin soo dhigay raaca waxa aad gelin doontaa halkan magacaaga oo ah magaca Facebook ugu furan ama magaca page ugu furan sida hadda aragtaan aniga Cabdijaliil Cusmaan baa igu furan waad gelinaysaa halkan waxaad dooranaysaa saaxiibayaal qaybta right manager ayaa dooranaysaa waxa aad tagi doontaa saaxiibayaal marka kale getting started registration on board ayaad ku dhufan doontaa kadib waxa aad leedahay Facebook halkaas waxaad gelin doontaa URL-ka Facebook-gaaga ayaad gelin doontaa halkan saaxiibayaal oo ah juice files waxaad gelinaysaa screenshot-ka aad ka soo qaadatay dhibaatada ku haysa ayaad gelin doontaa screenshot baan iska gelin doonaa hadda aniga kadib screenshot markaad geliso saaxiibayaal halkan ayaa waxa aad ku qori doontaa dhibaatada ku haysata qaar kamid ah dhibaatooyinkiina way kala duwan marka hadii ay dhibaato ku haysata la xiriirto an original u dir hadii ay dhibaato monetization u dir halkan ku qor fariinta iyo caqabadaha ku haysa adiga oo sidoo kale raacinay URL-ka Facebook-gaaga kadibna saaxiibayaal send ayaad leedahay aniga hadda wax dhibaato ay haysa malaha laakiin halkaas sendiga ayaad ku tusin doontaa marka formka waa formka oo payment support teamka waxaana suurtagal ah saaxiibayaal jawaab degdeg ah inaad ka hesho oo ay ka caawiyaan arrimaha la xiriira monetization issue marka saaxiibayaal saa idin tusiyay halkaas ayaad linkiga hoos baan idin soo dhigi doonaa linkiga hoos baan saaxiibayaal idin soo dhigi doonaa sidaas ayaad ula xiriiraysaa oo dhibaatada ku haysata iyo URL-kaagana aad u diraysaa emailka waa sababta sida kale aad ku gaari kartaa teamka internalka oo monetization aad bay u adag tahay saaxiibayaal inay degdeg u soo jawaabaan dadka qaar uma soo jawaabaan dadka qaar bilooyin bay sugaan waana sababta aan markii ugu horreysay saaxiibayaal idin ka codsaday wax loo yaqaan patience-tiga oo ah inaad dul qaadataan oo marka aad sameysaan saaxiibayaal waxaan idin tusinayaa sidoo kale sida language-ka waa dhibaato badan dhalinyarada ka haysata marka language-ka sidee ayaa turn off caption ugu dhehaysa ayaan idin tusin doonaa Facebook markaad soo gasho page-ka soo gasho halkan aad timaado saaxiibayaal waxa aad leedahay create post ayaad leedahay create post markaad dhahdo add video ayaad leedahay video ayaad dooran doontaa from my desktop baan dhahay aniga hadda kan baa iska dooranaya videogaas kadib open ayaan leeyahay marka aad open dhahdo saaxiibayaal halkan sida aad aragtaanba waxa idin shuruudo badan baa jira oo ay tahay inaad ka buuxisaan halka aad aragtaan saaxiibayaal language-ka saaxiibayaal waxaad u baahan tihiin inaad doorataan luqadaas oo ah Canada
CANADA Canada waa inaad doorataan saaxiibayaal waa luuqadda ugu fiican ugu lacagta badan ee haddii xayeysiin Facebook aad ku saaran tahay ay qasab tahay in aad doorato markasta waxaa kale saaxiibayaal oo muhiim ah oo aan idinkula talinayaa in aad sameysaan wax loo yaqaan halkan oo ah turn off captionka saaxiibayaal waa wax dadka dila haddii aad captionkaaga on ku yahay dhibaato ayaad kala kulmaysaa languageka ayuu akhrinaya languageka markuu akhriyana waxa uu ogaanayaa in luuqadan ay af Soomaali tahay markaasoo aad video soo gelisa aad create ahda halkan luuqad ka doorato luuqadda ugu lacagta badan ee aad Facebook lacag kaga sameyn karto waa luuqadda loo yaqaan Canada halkaas ayaad ka dooranaysaa halkan description ku qor halkan title ku qor waa wada taqaanaan halkan waxaad ka bedeleysaan wax loo yaqaan upload photo profile kaad ka bedeleysaan waqti badan ma raba in aan ku bixiyo halkan imo marka turn off iska dheh saaxiibayaal captionka saaxiibayaal turn off iska dheh captionka wax ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad turn off haddii aad turn on uu ku yahay automatic algorithm Facebook wuxuu akhrinayaa inuu waxaan Soomaali yahay Soomaali haday tahayna waa dhibaatada loo yaqaan policyga oo dhibaato badan dadka haysta marka turn off iska dheh intaas ayaan saaxiibayaal muuqaalkan kusoo gabagabeynaa waxaan ahay Cabdi Jaliil Cusmaan Cabdi Jaliil Films ayaad igala socotaan fadlan haddii aad kanaalkan ku cusub tahay nagu soo biir